mar haddii miisaankii siyaasadeed iyo masraxii siyaasadeed ee ummadda Soomaaliland ay wada lahayd ee tartanku meesha uu yaallay kubadda garoonku inoo taallay aad tiraahdeen annaguunbaa garoonka keliya ku ciyaarayna annaguunbaa goolka dhalinayna aqalka weyn annagaa tegayna daadar yeedi ka yeelaya ila idaacaddu cadaawad kale idin maahay dagaal kale kuma hayso tin wala xaasidaya haddaa imanaysaan oo ilaahay idin qoray waa iman lahaydeen laakiin ilaahay idin diiday oo xagga alla lidinka diiday waxa way idin cadaynaysaa yaa wadataan faysal cali dhurwaayo carab la oo ilaahay hangool iyo wan ka dhigay meesha ku sawirtay baa wadataan insha Allah ta'ala beena walaalayaal insha Allah ta'ala ayaa wadataan oo 4% oo 10 jeer dawaqay oo aan la kala garanayn inuu xisbi qaran yahay iyo inuu xisbi uu yahay reer guuleed aan la kala garanayn oo madaxweynaha jooga Hargeysa u sheeganaya siraayo Hargeysadan iyo Somaliland iyo waxan ba isna gudoomiyadu hay qaran kaba xoreeyay baawraha Hargeysa aniga leh halku joogay isagu yaanu gaaniye Morgan dumarka ka gadaynin miyaanu basaaskii ahayn markii la dagaalamayay Hargeysadan lafteeda gaaniye Morgan ugu shaqeynaya dhixirka xidhnaa miyaanu ka ahayn baynu dhageysanayna isagoo xusbi sheeganaya oo madaxweynaha nagu tartamaya uu lahaa siraayo Hargeysa marihid oo 12 habeenimo siraayo soo fadhiisay wadiga weyda markaa muswaay siraayo khasba uu uf baa uu madda ku dhacday hadda rag uu la hadlaya waa raggii Hargeysadan uu sheegayo xoreeyay waa isrimti isagu muxuu ahaa kaanka koor isrimta koor muxuu ahaa cidi kama hadasho waa lagu ixtiraam oo fal laguma qiimeyn maxkamad lama saarin dadkii uu laayay baa jooga dhalinyartii waxa way aqoonyahanka hayd ee uu dadkooda laayay Hargeysa jooga oo fuuxa suuqay laayay waliba wax kale waa ku darsaday idab daraa diisnima haddana gudoomiyaha la lahayo Faysal baa la lahayo halkaas aanu xisbuha kaasa wadata kaba sii darayde kii dadkoo la xasuuqay diyaaradaha laga keenay bambarka laga keenay Ruushka ee rasaasta laga soo qaaday midowgii Sovieti kii ka shaqeynayay logistiga ee ka shaqeynayay ilaa safiir ma ahayn ina kira ma jeerteen iyo kii mareexan baa ku adeeganaya ku shaqeysanayay ee Tolkio la leeynayo ka damqan waayay ka diiri waayay oo ciraa baa tiraadeen hadda gudoomiye baarlamaan weeye baa lidii gudoomiye xisbi oo masharax uu tartamaya weeye baa lidii war cidayda ka qaadanaysa waayo ninkii dalkan u soo dagaalamay iyo darawal baan u diiday labadan bay hor fadhiyaya arab baa yeelaya kuwii dalkan joogay ee markii ay iyagu ahaayeen nooca ka sheekeynayo ku qabanayay burco shirarkii nabadgeliyada iyo qarannimada lagaga dhawaaqayay burco oo maxamuud xaashiya nin kale waxba kuma ogoliyo waa ku diidanahay taadar ma ka yeelaysa markaa barjaro ka yeeli maaya markaa sa wariba doonaysa inaad caydo oo aflagaadayso tiraado ma kordhin karo oo ka dhigto gudoomiyihii golaha guurtida shalay ku kordhinayay aan ka dhigta habar jeclo tiraado Saleeman baa filinka wada iyo diintu ka baxayo waa gal halka ay ula soo fariisato hadan yaa kayr adiga baa naafo watay faqash dhashay baa wadataa damiir laawayaal baa wadataa dadaan ilaahayna ka xishoon ummadana aan ka xishoon raximka iyo aan garanaynin cidda ay yihiin halkay ka yimaadeen baana hor wadaano lidin leeyahay war ku socda oo ku qadaysin oo haysatiin idinka xaq u lahayn idaacadu waxa idin leedahay kaliya dadka ka mid noqda dad hagaagsan keena ummadda la tartama iska daaya waalidan buurahan aad koraysaan idab daradan iyo akhlaaq xumadan siyaasadeed ummadda baraysaan iyo idab daradan ka daaya haddii la yiraahdo garhays baa la nacbiima aan halkaa aad ugu adkay garhays baa la necab yahay maaha laakiin waxaanu diidaynaa qurunkan iyo naafadan aad wadataan dadkan baa meesha ay ka yimaadeen iyo waxa ay yihiin war shalay markaan dagaalamaya kii dumarkayga gadayay war shalay markaan dagaalamaya kii dhalinyarta xasuuqay ee gacan ku dhigla Faysal baad ileeday madaxweynaha noqdo meenu waalanahay meenu falanna shalay markii taayir gubtay ay magaalada Hargeysa Burco iyo deegaanada ay saaqay noqdeen kii hamburgerka mooska ku cunayay ee ay adeegsanayeen ee fataalka ahay adeegsanayeen ninkii mareexan ninkii ma jeerteen ee uu kala sokiyay safaaradda ay adeegsanayeen soo qaaday maxaa ku leeyahay rasaasta baa leedin madaxweynaha noqdo buraan uu koreynaa dalkaanu leeno maalmaanu tirinayna xagee u socotaan marka waa doonaysaa inaad naga gaddaan oo marba shir burnu ugu qabataan oo waxa weeyaan noo tiraadaan qaran baa dumay maysa idinkaa dumaya
إلهي بان إذن دمين مركا كوا إلهي مدح إذن كردقي كوا الدمية إذن كوي كيد دل كان حوريي أفريا سقاشا كنا قعانتا إذن كقبتي إيه موصبيحي الله بدل من نمت شوقين باوري موصبيحي بان مالمها وترينينا ماشو حوريستوي معرية فيصل باو تريناي مالمها أنا ترينايسان ما موصبيحي باو ترين كرتان maalintuu hargeysa soo galay faysal halkuu joogay maalintuu hargeysa u dhimanaya halkuu joogay cirro ma idinkaa u tirin karaa ma iraya faysal baa u tirinaya muuse isagaa u tirinaya maalmaha isagaa leh waxaydan xaq u lahayn baa qaadatay halkaa ka baxa sida loo karbaashana waa yaqaanaa waxba kuma aha gurigiisa wallahi inuu ku xidho idinkuna meelo kale ka hadlaysa wallaahi muuse idinka aqaanaayo إرى يا فيصل بنت السوق بتون فندقي سكوحدو أما السوري جورجي سكوحدو والله أنا وحبك راهي والله وادي كاغان بالله وادي كاغان وحبكم معها أو العلي دعاري سو كان لتشوف معه سونير موسى الرامة يسوق الله عقوة أو شام عيرة وحوي العقو كينية أو بوه هاد لك السودقي أو قرلوك تصمري أو هالكابر عك سوقري أو هرجي سيمد baa intuu qabsaday waa kii ka sheekinaya halkan baa idin ka shidaya buu wallahi suure ku xidh waa awal cali ducaale waa ka isagaa ka sheekinaya gaari landrofer uu ku soo qaato wallahi suure buu ku xidha irra iyo faysal wallahi inaana waxba ku ahayn inuu yidhaahdo soo faysal muu lahayn waxba aan qarinaya muuse bixi baa wuxuu igu yidhi halka ay garxays ka galaan baan ka geli doonaa cirkaa soo dumiyaan wallahi muuse idinka aqaan إذا هو هلا يسان بورا كريسان ما كلا تجيسان والله ما وضع الريا فيصل بو والله رسوليه كحرم وحبكما وحنين قرمه لكن الشرع وحصر الريا ويدنا كل رقمه هديها وحدون يسان ومد وحكد دون يسان وحلو هي سي اداب له اخلاق له نظامك دولدنimada iyo waxaynu dhiganay iyo social contract naga dhaxeeyay cid waliba aamintay cid waliba ku qanacsan tahay إن الله قلنا قماوي سندلنا وي ما أنت إرجع وموسيري ورجع ما عرفت طبعا شنطة سنويست وحلق أقبل كرا يا وحلق هذا كرا منا ما هو وحلق هذا كرا ما قرن كإن لفرق جليو ديجان الله كشكيو كو أكاد هالكينيبر هالكام يا جريزة سلطان يا عاقل دم بقى بير شجنا يو يرادا ديجاني وحاك شكيه كوي كذا هالكيني هدو يري والله وسوق بري شلي با وارتين بور كورتين قدي بانو سميسنا تراهدين عدا غدا رسول نوغا دغتين عدا غدا نو هوغامينيا عارو لعقته ورينيا عدا غدا هالكن مريا beeshii gar isku dibay yeerat waxaanu halku ku dambeeyay hada cad miyaanu hargeysa dhexdeeda ka qaban meeydaan oran cadda guda free adan ku walan irra iyo faysal barri haduu qabto free uma doranaysa laakiin wuxuu iska diidayaa nima waqtigoodii dhamaaday oo jar ka sii laalaada oo naafo ah inuu xidhaabu diiday laakiin midowgaada marka haddeer jalwadka lagu dhawaaqo ee liiskaasi soo baxo ee commissionka qaranku yiraahdo maalintaasanu qabanayna far haday dhaqaajiyaan arag weerar meel ku qorta hadalka caaw meel ku qorta halkii ay rasuulka inooga dhigeen iyo inuu dalkaba leeyahay ee cadda guday ma harka cad la qabtay islaantiisu barooraneysay feer baa lagu dhuftay feer jiri baa lagu dhuftay hidib baa lala dhacay waa la gujay waa la buquujiyey dhulkaas sida lagu yiri waa la riixay naaya halka ka baxbaa la igu yiri islaantiisu soo qaawan oo dirac kaliya xidhan halkaas soo istaagtay ee cid u dhaqaaqda la waayay wallaahi waa idinka aqaanaayo snaabtiyaashii waa yaqaanaayo oo wallaahi labadaba iyagoo laangaraynaya intuu soo qabtaabuu suuriga ku xidhaya markaasaa iyagoo xidhan oo free la leeyahay buugga boosna halkaa ka soo baxaya odhanayaana idin matalaya nimanka kale ee tartamayna halkaa ka soo baxaya hadhowna waa la mustaafirinaya sida carre loo mustaafiriyey soo mujaahidkii ma ahayn rag iyo dumar ba ay baroorteen carraa soo baxay madaxtooyaduu tegaya markaasaa ma jidha iyo dhabeeyacalla inooga dhigay dowladda haddii aan la idmayo dariskeenaaho naata iyo waarsaaho ciidamo u tareengaraynayso dalka lagu soo duulayo hargeysa la imanayo maxayna lahay abtow wiilka noo badbaadi baa ka dhacday iyo dalkaa ka carar wallaahi nimankaa waa aqaanaayo
berri marka liiskaa la soo saaro ee jalwadkaasi soo baxo far haddii la dhaqaajiyo sidii la garanayay bay u dhacaysaa wallahi suuli meelaan hay ku xidhan maayo muuse anaa idinka aqaan markaa ilmaadeen rayaalow waa idinla talinayaa hadday dabacdo u hiliyaa doqo walaalkeedii jaanis maa haysataan ha kala dhimannina somalilan meel degta baa tihiin siyaasi maydaan waayin caqli maydaan waayin garashada alla idinkama qaado alla timaha idinkama wada xiiro sida dadkiina falan urradii waa furan yihiin wakhtigii waa dhammaaday haddeeg nafkooda iyo roob galbeed gadaal uma soo noqday khadra daahirle waxaas wakhti dhammaaday weeye time dhammaaday weeye waxaa loo baahayey inaad ummadda dhinac ka raacdaan siyaad baraaberi waxaa lagu yidhi heesteeda ugu jecesho oo heesta tidhaahda dadkaaga dhinac ka raac war annaguna waxaad leeyahay dadkiina dhinac ka raac waa kaa maanta ceebtii shirkii lala gurguuranayey ee burco aynu arkayno qoladii jilibkii cabdiraxmaan ka soo jeeday waa kuwa go'dii ku oodan I think so berri ama sax daba maqli doontaan iyagoo odhanaya shir muuse cabdallah la qabanaya oo kii garxays baa shaqayn waayey muuse cabdallah halkan jooga oo cabdalla qoyr martuu ah baa shirkooda cid dhegaysanaysa maxay soo odhan mairaanu madaxweyne ka dhignay bay odhan mise iraa jabhad samaystay bay odhanoo go'da ku dhuuman doona boorta kori doona maxay odhan kii gacan libaax baa shaqayn waayey kii burcaa shaqayn waayey jilib yar oo waxa weeye halkan fadhiya oo martihi maxay samayn karaan maciraa madaxweynaha bay odhanayaan intii shirka laga soo waayey waxaan filayaa niman badan oo caqli shirka inay ka qayb galeen inay yidhaahdeen war xaggaynu u tukanaynaa kabcadii maaha siyaasadeed waana sababta looga gaabsaday siyaasiyiinta beesha ee urrada furtay inaan la shaashayn inaan sallaanka siyaasadeed iyo hayweygaa la saaran yahay aan laga dhicin beeshana aan la kala qaybin hoos loo dhigo laysu daayay nimanka siyaasiyiinta ee beesha odhanna kari waayen hebel bayna matelaya aad iyo aad bay ugu mahadsiin kolley dee rag waxa weeye tala kama dhammaato nimankii shirka ay tegey ee arrintaa guddoomiyey wax waa xeeriyeen somaliland bay xeeriyeen ama ay xeegaan u noqdeen maaha waxa weeye waxa ay sameeyeen waxa ay badbaadiyeen in badan oo siyaasiyiinta beesha gaboose iyo daamuriya ugu dambeeyaan iyo dhalinyarta dambe ee beesha ee dawrada dambe furan doonta haddeer kama hadlaayo kuwan haddeer qaar baa furtay haddeerna waxaan leeyahay war mar walba leeyahay haddii halkaa la sii socdo oo sheekadaasi ay noqoto halkii buurtii baanu shir ku qabanaa beeshaa ku qabanaysa iro halaag waxaanay loo horseedi maayo beel waalatana waxa weeye sacad iyo risonkeega muuse cabdallah hadduu waalanayo welcome to the hill baanu leen soo dhawaada naarta soo dhawaada haddaa cirre madaxweyne ka dhigi karaysaa bal hadda dhinacan kale eego haddii waxa la wadaa ay xaq tahay oo ay tahay wax laysla ogol yahay oo wax gar loo leeyahay ay tahay ilaa garxays baana la yidhi iyo somaliland baa beel laga dhigayo halkaa fadhiisatay tiinaba haddii laydiin raaco tan iyo 94 beel deegaan habar yunisun baa shir lagu qabanaya ama daalaha lagu qabto oo liibaan wan hal la yidhaahdo liibaantu ama buurtii haddeer ha lagu qabto ama burcaha lagu qabto haddii garxaysnimadu xitaa lafteedu shaqaynayso maxaa ciidagala deegaanka hargeysa ugu qaban waaye mise deegaanka hargeysa garxays ma laha miya maxaa lagu qaban waaye maxaa ciidagala deegaan uu leeyahay gogol u dhigi waayey uu garxaysnimada uga shaqaysiin waayey oo madaxtooyadu qardhana kuma taal ceerigaabana kuma taal burcana kuma taal buurtii halkeen ee gacan libaaxna kuma taalle hargeysay ku taallay halkan la isku hayaa waa ceelkii hargeysay madaxtooyadu halkay ku taallana waa la garanaya haddii beeshu degto oo shir garxays lagu qaban karo oo Itaaliya awood loo hayo oo garxaysnimadu ay daacad ka tahay hargeysa lagu qaban lahaa laguma qaban kari deegaan ciidagale labada ayre tuure ee qool caday iyo salaxli baa lagu qaban lahaa laguma qaban karo waayo waxay diidayaan culayska iyo inkaarta iyo dhibaatada kaga dhacaysa iyo dhirbaaxada dawladda diidaya una dhiman maayda nin habar yoni soo 1000 kilomitir ana isku deegaan isagoo og intay soo socdaan inay dhimanayaan iyagu
markaa maxaa gelinaya dee wax weeye bad aanu geli karayn wiilka ciida gale oo gurmadka ceerigaaba ka imanaya naftuba ka baxaysa inta soo socdo oo dhaawiciisu xitaa uu sii dhimanaya maxaa baddaa gelinaya baddaa haddii aan layd maayo iyo dagaalla iyo aafaadiya maxaa gelinaya markaa mar walba isagu waa inu iska fogeeya garxays weeye ku socda dabeetana degaa garxaysiste waxa weeye halkaa la geliyo maantana waxaan idin leenna oo idinku celcelinaynaa meeshii tala ma jirto waa idiin jeednaa siyaasaddiina lagu kala bediyo oo aragnay dadkii somalilandna nabad iyo dimuqraadiyad bay qaateen oo waddadii la maray iyo road maapka dowladdu jeexday waa u jeednaa haddii inuun caqli jiro haddii inuun mustaqbal siyaasadeed beeshu leedahay haddii inuun laga fakerayo ama loo fakerayo dhinaca positifeka ah waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga fiirsado arrimaha qaarkood in xaaladaha maanta jira haddii inuun caqli dee beesha in dee kollay rag laga waayi maaye in arrintaa laga xaajo qaataa la fadhiistaa geedka la tagaa la yidhaahdaa baashta u socoto waa arkaynaa aynu xaggii ay u suuro gelaysay albaabkaynu ka geli karayno aynu ka galno daboose muxuu yidhi waxaan ka cararayaa beeshu inay cidla ku soo dhacdaa iyagaa badbaadinaya hadda shalayna buurtu la saarraayo hadda ogow wuxuu moodayey xaajo rag in meesha lagu hayo oo xisaab reerka taladeeda ku saxmaysa lagu hayo markuu soo fahmi waayey waa ka ururka furtay hadalladiisa u fiirsada waxaan ka cararayaa in beeshu cidla ku soo dhacda xaqiiq weeye waayo haddii sidan laysku haysto oo tolkana lala coloobo oo layska dhigo minority oo cuqdad cid walba la gashado oo la yidhahdna cidba ma ogolin sidii buurta loogaga qunuudayo berigii dhaweeda lalaa habar jecla ma ogolin habar awel ma ogolin haddana iyagii loo kala dheeraynayo ee laleeyahay habar jeclay xus baanu ku siinay habar awalay suldaankiinaa noo yimid hadda cidna uma iman cidna kumay wareeji waxba hadda waa kuway shalay lahaayeen buurta markii lagaga qunuudayay yaaray noo imanayno uma baahnin markii laga soo degay maxaa la yidhi habar jeclay xus baanu disin haddeer shirka kale maxaa la yidhi habar awal baa noo timid iyadoo socda macali guray baa habar awal matala mise xirsi baa habar jecla matala soo idinkii yidhi waxba waa idinmama baahnin soo tala xumo ma mise suldaan xasan baa habar awal matala maya wey laakiin odaygu markii uu buurta ka soo degay wuu fahmay meesha inaan meella loo socon in albaab weliba soo xidhmay markaa muxuu yidhi haddeer u fiirsada khudbadiisa waxaan ka cararayaa oo aan badbaadinayaa iyaga buu yidhi si aanay xusbila'aan ugu dhicin oonay cidlo u soo istaagin ile ummad waxa weeye kala socotaa oo xabaalaha isku eryanaysaa oo siidhi sidataa oo aan meel u wada socon oo aan shir ku heshiinayn oo dhaqan ku heshiinayn oo toban tukaan iska ag furanaysa aakhirka inay jabayaan ilaahayna waa ogiye ummadduna waa ogtay innaguna waa arkayna markaa odaygu iyaga laftoodu badbaadinaya waanay garanayn markaasaa idaacadaha ka caayaya markaasay odhanaya waa macay dayuus waa caynkan